عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله. إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaane ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilmaa dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebeluu dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebeluu dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weynanka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegey. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa, maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anuwan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdulaahi bni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen. sida innaku aan u shaqaysanayeen, sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi
qosolka aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan duniyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa. nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya. su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya. haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. oo su-aasha qabriga waa maxay? waa saddexdaas su'aalood weeyaan. man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laba malag baa u iman doonta alfataanaan, deedna way fadhiisinayaan qofka. saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan. hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin. bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa. man rabbuka, ayaa ku rabbaynayey, ayaa ku quudinayey, ayaa ku arsaaqayey, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay. maa diinuka, diintaadu maxay ahayd? dhaqankaagu muxuu ahaa? maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay? man nebiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay? marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay, ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad. ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona. walaalayaal, ilaahayna haynagu sugo, allah haynagu sugo, allahana inoo dhib yareeyo. saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa. marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay, ilaahay maad arkin laakiin rumee. makhluuqaa kuu muuqda, makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo. jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko. adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo. manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid, waa qayb. aakhira taa lagugu tusin doonaa. shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat, wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa. shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa. maanta adduunyada inoo muuqato, aakhira inooma muuqato. laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto, laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid. waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan, laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee, araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa. oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa. ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa. waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay. hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii. hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa. hadduu khayr ahaana thawaabkii, ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa. adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay, aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo, laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa. wa min aayaatihi alleylu waannahaar, habeenku waa aayad weeyaan. aayad waa maxay macnaheegu? waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo.
maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku aladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii ثuma yuxyiinii wa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xagga ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abgada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali
qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare iminka aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xuralcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaarayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قشيقي سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان نلقى كالصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn waayatun lahum alleylu naslakhu minhu annahaar baa ilaahay yidhi aayat alleyli iyo aayat annahaar noloshan adduunyadaan ku nool nahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabixatuhaa yowma almaxshar
وبريقنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدويدن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا واحد لوغا ديغيا قد النار كميدا لوغا ديغيا لأن أهردا وتضباطا كيساني الدوية وصود علي أيا للي هلكا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوغدنا وحي الدوية بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسانيسا ووحا قبري دباتك وكالكو هايستا ورؤمها يعني وي هردا مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكاليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan لأنه يصوب حيان يوم القيامة مالنت سرجوجة ويوم قرآنك يوم بوشيغ هبين مشيغن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 sanadood ibn Abbas radiyallahu anhuma مفسر القرآن كوحو كفسروا يدي أفرتن كونو سنة ولا جوجي 10 كونو سنة حسابتها كل ماني دون تبو يدي أفرتن كونو سنة ويا سيد الله تاجنان دونا 10 كونو سنة حسابتها كل مان دون لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارته وان بدبادني بودي وان نبت قلبي بودي مرقا النبي يقول صونغو سيادو كل نبت قشي بو كيدي بلي شيك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دون اسكا كايا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يدي وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو هدو جران أبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كيشا
timir jeexeedoo sadaqada aad u bixisaan kolay noqotana timir jeexeed walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nebigu yidhi timir jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalkan wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdu lilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruufku waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu tayibatu sadaqa buu nebigu yidhi caaisha radia allahu canha uma almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay slam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jiro buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa asulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badani waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoortay ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati طariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adri maada yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo